shirkan waa kiisii labaad oo isugu yimaadeen wakiilla matalaya dalalka IGAD Jabuuti ayuu ka qabsoomay kii kan ka horeeyay waxaa looga hadlayaa isu socodka bulshooyinka dalalka IGAD oo isku mara hab dalku gal la'aan weli lama gaarin heshiisay laakiin shirarkan waa wada tashi lagu doonayay in heshiis lagu gaaro Jamaaluddin Mustafa safiirka dawladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya oo ku hadlayay magaca xogayaha guud ee IGAD ayaa sheegay qodobada iyo xuquuqaadka heshiiskan uu sahli doono heli doonaa kow in uu geli karo kana bixi karo dalalka xubnaha ka IGAD visa laan labo in uu helo fursad uu helo shaqo uu helo saddex in uu hooy helo afar in loo diiwaan geliyo in uu yahay muwaadin citizen dalalka xubnaha ka IGAD marka waxay tahay waa arrin weyn marka la fiiriyo loo fiiriyo dadkeena Soomaaliga iyo gudaha loo fiiriyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa shakhsiga ee dalalka IGAD waxay wax ka bedelaysaa dhaqanka xerooyinka dadka ku oodan qaxootiyada isla markaana ay badanaysaa marka ruux loo ogolaado in uu dhex mushaaq karo oo si free ah u dhex socon karo dalalka waxa ka dhiganta ruuxaas waxa waaye fursad shaqo iyo fursad noloshiisa wax kaga bedelo oo ka duwan kan xerada qaxootiga ku jiro ayuu helaya ka dhiganta gaashaan la sare Maxamed Aadan Jimcaale Koofi taliyaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda ayaan weydiinay walaaca laga qabi karo isu socodka bulshooyinka maadaama Soomaaliya ay dad isla tahay bulshooyinka badan walaacaas uu jira Soomaalidu way qabtaa run ahaantiina tirooyin dad oo ka badan way jiraan oo deris nala ah Soomaalida marka laga fiiriyo waxa laga hadlayo waxa weeyaan sharciyada dalka u yaala ee gaarka uu leeyahay ayaa lagu dhaqaayaa ma ahan wax iska wada furan marka sharciyadaas ayaa la rabaa marka inay markastaba ay ilaaliyaan xuquuqda qofka muwaadinka uu leeyahay sidoo kale tan inay ilaaliyaan xuquuqda qofka martida ee soo degaya dalka inay ilaaliyaan marka ma jiraan wax wada fasaxan laakiin wax walba waxay ku hoos shaqeynayaan sharciyada dalka uu leeyahay Ali Maxamed Ali oo loo yaqaan Ali bin Ali oo ah xogayaha joogtada ee wasaaradda amuraha dibadda ee Soomaaliya oo goobjoog u ahaa aasaaskii shirkii koowaad ee IGAD 32 sano ka hor ayaa ka hadlayay faa'iidada Soomaaliya ugu jiri karta haddii heshiiskan la gaaro waxaan qabnaa isu socodka hantida iyo dadka inay faa'iido badan u leedahay dalalka oo dhan horumar badan baa ka dhalanaya EU-da waa ognahay waxa lagu maraa ID kaliya anagu wax badan baa wali dhiman laakiin dawladda Soomaaliya way soo dhaweynaysaa arrimaha noocan oo kale iyo horumar kastoo la sameeyo iyadoo la tixgelinayo shuruucda iyo siyaasadaha dal walba u gaara heshiiskan ay dad badan oo Soomaaliyeed u arkaan haddii uu dhaqan galo in faa'iido uu yeelan doono dadka Soomaaliyeed oo qaarkood hadda dalalkan IGAD ee heshiiska la galayo ay qaxooti ku yihiin laakiin dhinaca kale waxa muuqan karaysa in dadka Soomaaliyeed oo tirahaan aad u yar marka loo eego dadka ku nool wadamada dariska la Soomaaliya ay qatari uga imaan karto Dinaasir Maxamed Telefishinka Universal magaalada Muqdisho